guddiga waalidiinta dugsiga Abaarso iyo qaar ka mid ah waalidiinta ay dhigtaan ardaydoodu dugsigaasi oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in saxafi Cabdimaalik Muuse Coldoon uu fadeexad iyo sumcad dil ku sameeyay dugsiga Abaarso iyo ardayda dhigata. Guddiga iyo waalidiinta ayaa sidoo kale naqdiyay wararka sheegaya in saxafi Cabdimaalik Muuse Coldoon ay cafiyeen waalidiinta dhalay ardaydu isla markaasna ay ka noqdeen dacwadii saxafi Cabdimaalik Muuse Coldoon waxaanay garsoorka ka codsadeen waalidiinta iyo gudiguba in saxafi Cabdimaalik Muuse Coldoon loo xukumo cod bixintii bulshada iskuulka laftiisuna waa u helay maalinta wixii ka dambeeyay Cabdimaalik waxa uu bilaabay in ceebo waxba kama jiraan oo been abuura oo aan sal iyo raatoona lahayn inuu bulshada ku marin habaabiyo oo social media isagoo adeegsanaya oo ka dhiganaya hub oo u isticmaalo isla sidaas la mid ah waxa yana dareenadeedu ay ku xeeran yihiin in iskuulka oo kaalin muhiim ah oo mugle ugu jira bulshada reer Somaliland inuu cadawga Somaliland oo aad uga xun arrimaha iskuulka iyo ardayda iyo midhaha uu soo saaray awadeed inuu kuwana gacan saar la yeeshay dabadeed oo labadoodiiba halka ka mataanoobeen inta ka bacdi waxaan doonayaa halkan inaan laba eray ka idhaahdo nimanka looyarada ahaa ee maalintii dhaweyd kiiska joogay ee ogaa maxkamadda intii kiiskaasi socday waalidiinta dhibanaha ah ee goobjooga ahayd ee subax walba dacwada imanaysay ee dhibanaha ka ahayd ee caruurahoodii iyo ubadkoodii been abuurka laga sameeyay qaar la yiri gaaloobeen qaarna la yiri iskuulkaaba lagu farxumeeyaa arrimahaasi dhibaato aad u weyn oo la qaadan kari waayay weeyaan waalidkuna dhibana ayuu ka yahay waayo annaga oo waalidkiya iyo boardka iskuulka oo Somaliland intii hal doorka u ahayd rag iyo dumar ay cidda maamusho yihiin intaba waxa laga soo qaaday fadare aan waxba ogeyn oo in xumaanta qayb ka ah oo meel wax lagu xumeeyay joogo arrinkaasina sal iyo raatoona ma leh waxaan markaa halkan ka cadaynaynaa oo nagu kaliftay maanta inaan saxaafadda oo waalidiintu in badan iyo muddo dheer ay ka xishoonayeen inay hor yimaadaan oo media ka yooyootamaan oo la isaga jawaabo waxaan halkan soo joojisay markay nimankii looyarada ahaa yiraahdeen iyadoo aan waalidkii cid u timi oo ka xaal marisay arrintaasi aanay jirin cid raaligelin ka bixisay aanay jirin cid wixii la sheegay soo cadaysay aanay jirin ay yiraahdeen kiiskii way ka baxeen oo dhibanayaal kama aha iskuulka Abaarso iyo waalidiintii geesta kale Cabdifataax Siciid Muuse ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay isla markaasna naqdiyay sawirro lagu baahiyay baraha bulshada sawirro qoomuluudku gaar u leeyahay ma naqaano anagu sawirro qoomuluudku uu gaar u leeyahay cidda sheegaysa ayaa dad sharixi doonta ninkaasina hal mar buu saacad gudaheed wax ka yar iskuulka ku sugnaayo barnaamij uu ka duubay barnaamijku ka duubayna waa isaga si caadi ah loo daawado barnaamijka 60 minutes la yiraahdo wax wanaagsan baa inuu iskuulka kaga sheegay ugu dambeyntii waxa halkaasi ka hadlay mid ka mid ah waalidiinta ay dhigtaan caruurtoodu waxaana ka mid ah hadaladiisii oo ilaa 700 oo qof ah oo waalidkii ay ardaydii iyo macallimiintii iskuulkaas xuquuqdoodii lagu xadgudbay tamaantana soo kicisay waxa weeyaan oon anagu aad ula yaabanahay xitaa looyaradii Cabdimaalik difaacay ina ay waxaanay qoraalka yaga naga arag oo nidhi waanu ka tanaasulnay dacwadii ama aanay afka yagaba naga qaadin oo been abuura inay sameeyaan yiraahdaan dacwadaas kama aha dhibanaanu ka nahay runtiina waxyaabaha aanu aad uga cabanayno in badan xitaa ergooyin xeer Soomaaliya aanu soo marnay waxa kamid ah ceebayn iyo sumcadil uu ku sameeyay caruurtayadii waxa kamid ah been abuur uu Photoshop intuu soo qaatay dadaan abaarsaba ahayn uu soo dhigdhigay uu yiri waa kuwa oo waxyaabo ceeb ama faaxisho sameynaya waxa kamid ah nabadgelyo xumo oo ku abuuray oo ummadii ku soo kiciyay uu yiri meesha waxa ka jiro oo dadka aan aad ugu fiirsanayn ama garashadoodu liidato ay u qaadanayaan inay sidaa tahay ugu dambeyntii waxa halkaasi ka hadlay mid ka mid ah waalidiinta ay dhigtaan caruurtoodu waxaana ka mid ah hadaladiisii Axmed Nuur Ciise Maxamed Bulsha TV Hargeysa.